madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaaran uu hogaaminaya ayaa safar shaqo ugu kici timay dalka aynu jaarka nahay ee Itoobiya kadib markii madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisu ay martiqaad rasmi ah ka heleen ra'iisul wasaaraha waddankaasi Itoobiya Abiy Ahmed. madaxweynaha Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha ayaa la filayaa in kulankooda ay kaga wada hadlaan xiriirka qotada dheer ee u dhaxeeya Soomaaliland iyo Itoobiya. kulankan ay wada yeelan doonaan labada hogaamiye ayaa lagu wadaa in lagaga wada hadlo oo diiradda lagu saaro cilaaqaadka cudoon ee u dhaxeeya qaranka Soomaaliland iyo dawladda federaalka Itoobiya iyo sidii la iskaga kaashan lahaa waxyaabaha muhiimka u ah labada wadan. kulankan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ay wada yeelanayaan madaxweynaha Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed tan iyo intii uu isbedelka ballaaran uu ka dhacay waddankaasi Itoobiya. hase yeeshee madaxweynaha Soomaaliland ayaa tan iyo intii uu talada waddanka la wareegay waxa uu kulan la qaaday ra'iisul wasaarihii ka horeeyay Abiy Ahmed Master Haile Mariam Desalegn. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigiisu intii aanay dhoofin waxa warbaahinta uga warbixiyay safarkaasi ujeedadiisa iyo waxyaabaha ay ka wada hadli doonaan madaxweynaha Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland mudane Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon waxaana uu ka warramay safarkaasi iyo ujeedadiisa. wasiirku isagoo arrimaha ka hadlay waxa uu yiri saaka halkan waxa ka ambabaxaya wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. wafdigaas wuxuu u baxayaa dalka Itoobiya. madaxweynuhu wuxuu casuumad rasmi ah ka helay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya waxaan u tagayaa isaga iyo wafdiga la socda inay ka wada hadlaan danaha iyo xidhiidhada ka dhaxeeyay Soomaaliland iyo Itoobiya. dadweynuhu waxa laga yaabaa inay intiisa badan sugayeen muddo badan lahaayeen madaxweynuhu goormuu tagayaa Itoobiya. arrimaha waa laga wada socday imikaana waqtigoodii la gaaray maantuuna tagayaa isaga iyo wafdiga la socdaan insha Allah markaan soo noqonana wixii ka soo kordha iyo wixii lagu soo wada hadlo ayaan warbaahinta inta loo baahayay ka siin doonaa. intaas baan ku soo gaabinayaa. safarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka ciitimay waddanka Itoobiya ayaa waxa ku helinaya wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda, arrimaha gudaha, maaliyadda iyo ganacsiga. Ahmed Saki Daahir Xasan warbaahinta qaranka Soomaaliland gagada diyaaraduhu ka hadaan kana soo dagaan ee Cigaal International Airport ee caasimadda Hargeysa.